waxaase ka sii xumaan lahaa inaan aniga isaguba intaanu god gallo aanu dhibaatada sii hurinaa ka sii xumaan lahayd oo in badanoo inta dhimatay ma inta kalena ay raacdo runtii marka wanaag badan weeye inaanu annagu dadka hormuud ugu noqono nabadda ayaadna noogu jirtaa marka labadayada aniga Cabdikariim walaalka Cabdikariim inaan isu nimaadno dadka tusno dariiqa wanaagsan ee nolosha nabadgelyada horumarka iyo dadkan ehelka ah ee wada deganay inay iskaashadaan inay ayagu ay xuduud isu noqdaan meesha ayagu xuduud isu tijaabin lahaayeen in ay xuduudda iyo cadawga Soomaaliyeed ee kale wafrada tirada badan oo ogtihiin oo meel walba jooga inay iska kaashadaan weeye diyaar baan u nahay marka inaanu wada shaqeyno aniga iyo madaxweyne Cabdikariim ka shaqeyno nabadgelyada ka shaqeyno horumarka ka shaqeyno wada jirka iyo midnimada Soomaaliyeed annagoo tan nabadgelyada gaalkacaya heshaahi iyo mudug sii talaabinayno meel kale oo Soomaalida dhiba ka jirtana ka geysan doona tiradeeda gaalkacyo markaan isku biirsanana meel kale oo runtii aan rajeynayo in ay noogu noqoto base fikir fiican baa ka abuurmay runtii halkan in aan dhamaantii isu nimaado ra'iisul wasaarihii madaxweynayaashii dowlad goboleedyada iyo dad badan oo kale oo culumadii marka runtii opportunity-ga walaalkay sheegay ka soo baxday waxay tahay gaalkacyo khibradda laga helay dhibtii dhacday waxa weeye in Soomaalidu dad isku damqanaya oo ehel ay yihiin meel walba shaqaqa ka dhacdana saa loo gurmanayo la aadi doono insha Allah waxaan rajeynayaa marka ana waajibkayga waa gutay koonfurta galbeed Ahmed Cabdikariim waxaan rajeynayaa isla maanta insha Allah inuu yimaado dhanka kale ee magaalada xagga aan ku wada qadayna hadii Ilaahay yiraahdo halkaasna aan ka sii anbaqaadno nabadda iyo horumarka hadii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad arintii Ahmed isaga hadda ajiibay tagitaankaygii laakiin adaadu waa magaalo runtii aanu shaqada qaranka aan joogay runtii waan ka soo shaqeeyay magaalada jecelahay weeye dad eheraho oo ana jecelahay waa ku nool yihiin sidoo kale hadda caasimadda galmudug waa dhuusamareeb magaaladeedii weeye marka dadkan waxay kala yihiin meel kala jiraan midna ma jirto marka xasan guriga xoogiisa nagu xuxin cadaadada iyo dhuusamareeb ay imaan doona insha Allah hadii Ilaahay